wafdigan oo kulan la qaatay ardayda jaamacadaha ka barata dalka Suudaan iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa inta badan waxa uga warbixiyay xaalka wadanka uu marayo iyo waxyaabihii dawladda u suuragalay intii ay jirtay. Munaasabadan oo aad u ballaarneed ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiin aad u badan taasoo lagu soo dhaweynayay wafdiga booqashada uu ku joogo wadanka Suudaan ayaa waxa uu mahadnaqay Aadan Cabdi Sani oo kamid ahaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Suudaan. Munaasabadan ay soo abaabuleen ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa waxa si diiran uga hadlay safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Mudane Maxamed Cabdullaahi Ugaas Faarax. Safiirka ayaa wafdiga ugu warbixiyay sida ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed dalka Suudaan ku nool ay isugu duuban yihiin isla mar ahaantaana ay doonayaan inay wadanka wax ka qabtaan. Isagoo munaasabadaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxyaabo ugu waaweyn oo ay naga codsadeen waxaa ka mid ahaa in markii ay ka qalinjibiyaan halkan Soomaaliya wasaaradii shaqada iyo shaqaaluhu inay diyaar u tahay ardaydaas inay u maalaan lahayd. waa fursad aad u weyn caawa in aad halkan ugu timaadid annagoo ku hadlayna magacooda in aan kuu soo gudbino aan diyaarna u nahay waxaa nooga baahan tahay sidaan kuugu soo gudbin lahayn si dhalinyarada ah future-ka iyo mustaqbalka loo meelan lahaa dawladuna uga faa'iidaysan lahayd. wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooc oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horreyn ka warbixiyay sida baahida shaqo iyo dadyari loogu qabo wadanka Soomaaliya. dhalinyaradaas ee lagu horumarin kara iyo annaga odayaasheena ah oo wixii aan soo aragno halkaas loo mari jiray dilaan ilaalo u sheeg marka culayskaas waa jira oo aqoon ha ahaato maamulka qadarkiisa wasaaradda wasiirkaas ku wada hawlka shaqaalana waa joogaa dowlad marka isagiyaa waxaa taqaan isagiyaa agaasima isagiyaa wasiira أنتوا هذا كيف هلو جيرة أو شر على الصومال الخارج والنعم مركز قضيات ودلالنا. sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan wax ka barata inay wadanka dib ugu soo laabtaan ayna yihiin dadka imanka gudaha dalka Soomaaliya ka shaqeeya ardaydii Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka baratay. waxaan codsanaynaa dhalinyarada inay soo noqdaan والله قال توقفين لوس سمين وبراكتيكال خصوصا على سابيا مستوصاها علوم مضر كله وليد توقع كانوا هذه جنريشن كاس هتوقع خطرت لا هتروح على السعودة جنريشن كذا تصاير عجلت وقت مركا سيدا كلي الله كذا روحي كذا الجيران مركا وقت من ذلك يصير موضوع markay ku soo noqonaan adiga iyo aniga oo kale ay haddana mar labaad maxaa jaamacad laga soo baxay kaliya waxa ku sheegay jaamacad lagu day ku sheegay intaas ka baxay intaas ala tagaa intaas kaliya ku tikiye kaya qaado iyo haddii sabab marka istii loo wadaadka masha Allah theory soo practical halwa oo joogtay ina munaasabadaasi lagu soo dhaweynayay loogana warqaaday wafdigan oo ay goobjoog ka ahaayeen boqolaal arday Soomaaliyeed ayaa waxay su'aalo ku weydiiyeen wafdiga. waxa uuna sidoo kale wasiirku uu ka hadlay arrinta dastuurka una sheegay in loo baahan yahay in aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ku nool ay ka qayb qaataan. munaasabadan habeenkan caawa loo sameeyay wafdigii ka socda dowladda gumeel gaarka Soomaaliya oo horkacay wasiirka shaqada iyo horumarinta shaqaalaha Mudane Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooc ayaa waxay ku soo gabagabado jawi aad u wanaagsan iyagoo halkaas inay su'aalaha ardayda ay ku weydiiyeen mana markii ugu horeysay oo wafdi yimaada dowladda gumeel gaarka ka socda magaalada Khartoum oo loo sameeyay munaasabad caynkan oo kala ah. Fiido Maxamuud Fiido TV-ga qaranka SMTV Al Khartoum Suudaan.